waxaa weli wacyigelin ku aadan si waxa loogu qabto fatahaadaha inta badan kusoo laalaabtay gudaha magaalada beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ka wada gudoomiyaha xisbiga Dallis ahna musharax 2021 Cabdiraxmaan Xuseen Cadow waxa wacyigelintan lagu qabtaa goobaha dadka iskugu yimaadaan iyadoona maanta oo Jimco ahayd lagu qabtay masaajidka Al-Huda salaada Jimcaha kadib ayaa dadkii jamaacada masaajidka waxa ay soo dhaweeyeen dadaalada uu wado xisbiga Dallis waxaan warkay soo gabagabeynaa gacnaha la isqabsado hadda nina ayaa dhacdaas ku guuri baladka waxaas ka soo baxay guul xagle waxaas u baxay boqol intaas ka soo baxay boqolas soo guur banaankaana soo day waxaas qaatay baashir dhigi jiray makiin cagaf ilmiyaasa boqol 600 isku tagay $100 daas bixi badbaadana balisa boqol kaliya hada iska bixi oo reeyaan walba biyaas baxdaas $100 iska bixi waxa malayna luugas xala la heli kara hay'ada wax suuqayne dibada wax suuqayne anaga ayaa wax qabsan karno maana kastana ma aragtay dadka ma aragtay waxa haysto ee gobolkan joogo aad ay u kala badiyeen waxaana ma aragtay dadkii ma aragtay waxa haysto soo galay dadka way sameeyeen masaajid biyaha waa col guud weey di soo baxaan dugsi quraanka waa galay masaajidka waa galay duciid waa galay kan uu haystan helmay warqala carra marka dhibaato guud oo dhacday insha Allah la wada istaagaya marka raggaas insha Allah daraasadii sameeyeen iyo abaabulkooda oo garab taaganahay inta kadib Cabdiraxmaan Xuseen Cadow gudoomiyaha xisbiga Dallis ahna musharax 2021 ayaa bulshada beledweyne ugu baaqay isku tashi fatahaada cilmi baarisan ka sameeyay oo ka dhacday magaalada beledweyne waxaan ka sameeyay magaalada Muqdisho kadib waxaan soo aruurinay reer beledweyne ayagoo isku tashanaya gacmo ku gooyaan iyo isku tashanaya inay fatahaada iska wareejin karaan ما أسكت ركنا يقول قالت ربنا كل بحي مقالنا نقول مقالنا حافظة المولى كم تاع مقالها أنت بدنا على يده حدنا الجوابان الكشاف وكل حنا مقالنا أنت تكلمته ولا عدو وكعيسى دخل ما بين كلام ودولك يا أبوان مركا إحنا سلامنا هاي بقولك وسلاشة الشام الدولة مقالنا نقول ويصار فتحنا marka waxaan ku qiyaasnay ilaa $100,000 oo qoys magaalada ay degan tahay qoys kasta haddii uu $100 bixiyo lagu dhufay $100,000 waa $10 milyan fatahaada dhan biyaha lagu maareyn karana waa $5 milyan sidaa daraaddeed in ayada oonan loo baahanin wadamo shisheeye ayadoo loo baahan dowlad federaal ah oo ayaduna hadda tabarhay Cabdinuur Cismaan Aadan Carays wadan radio and TV beledweyne